وزير كحينك وزارة arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Axmed Aadan Ismaaciil Axmed Kaysi oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa faahfaahiyay doorkay xukuumadda ku lahayd soo deynta iyo habkii loo xiray isla markaana hadallada xisbiga wadani ku tilmaamay kuwa aan ka turjumayn xaqiiqada. Wasiir Kaysi wuxuu warbaahinta u soo bandhigay waraaqadii diblomaasiyadeed ee wasaaradda arrimaha dibaddu ku dalbatay soo deynta أحمد آدم دجال سفينة حبين كتر سن حسب وطني وزير كيس وحو كورمي هنانكي الومري ددالكي أي حكومة دوغا شيء كارها وزارة دارمها الدبدا أو خميسة بيشتشين ورنا يتاي سقالي طبعا وحنا أمد هير سومالي لان يوم أمد كلا سوماليا أفكا سوماليا وقوالا شمال كستي جوغان با إنانو إسكد دافعنا ما إسكد دفاعنو eed aan loo meeldayin oo ka soo yeelaysay xisbiga wadani oo shalay ugu dambeysay horena dhowr jeer hore ay uga soo yeedhay taasoo ku saabsanayd xiritaanka nin la yiraahdo safiir Safiina Axmed Aadan Digaala la yiraahdo taasaanu doonaynaa inaan u cadeyno ummadda reer Somaliland ama uga jawaabno Safiina wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumaddu miyay shirqoorano way xireen mise way soo daayeen سمح الله وحرق سأل كور قبطان دبلوماسي بوهان شري سفينة وحال سي باسابور كي دبلوماتيك باسابور كاها حلي ويسير كاها وساردنا ريما دبدا يسكاشي عالميغا محمد بيحي يونس مركاسي مركيو حلكي كتغي نوع دون حلكو هاي باسابور كي موسو علينين باسابور كاسي ايانو امسنهي سيداد هلكن بك عدين دونتان عدين تبا كموقان دونتا inuu ku safro Nairobi ku tagay markii uu ku tagay waa lagu qabsaday waxaana halkaasi warqadii aanu ku haynaa waaxda baaritaanka booliiska dambi baarista ee Nairobi ama Kenya ay u soo direen xafiiskeena aanu ku leenahay Nairobi inay u cadeeyaan Axmed Aadan Digaale baasaboorkaasi diplomatic baasaboorka Soomaaliya laga bixiyay inuu yahay mid sax ah iyo in kale taasi markii ay safaaraddu soo gaadhay safaaraddu way noo soo gudbisay waxaan ahayd 4 January sidaad ka arki doontaan ba taariikhda warqadan ku xusan 4 January markay ahayd wasaaradda arrimaha dibaddu way noo soo gudbisay dabeetana waxaan u cadeynay oo DG uu ku saxaxay 9kii bisha inuu yahay baasaboorkaas oo baasaboor Somaliland isla markaasna oo diplomatic baasaboor yahay ninkaasuna nin diblomaasi oo ahaan jiray hase yeeshee imika uu ka tirsan yahay xisbiga wadani uu ka tirsan yahay sida oo warqadaasi markii ay heleen inuu baasaboorkaasuna sax yahay ayay sii daayeen booliiska haystay ee Kenya taasi markaa jawaabteeda ama waxay ummadda reer Soomaaliya aqliga fiican yihiin ama aqliga fayooli wuxuu isweydiin karayaa miyaanu sii deynaa ama garan karayaa miyaanu sii deynay Safiina mise waanu xidhnay تاسا مرخاتي كاينة نسيديني شرقول لما يهين أرنتو أرن باسابور دبلوماتيك باسابور كالو قبصداي بيهين تاسانا يهيدين نكسيديني وحانون أراجنا حتى يسجل لفتيسو وحو لسه حريري أو جوب شوغياشي مكاي فديان ولسه حريري مسؤولين توسارة دهرما دبده وكركبين يقولها ورقدا يوصل رقصدا أو يسوع عدايا إن أنا باسابور كانوا باسابور شري حي تبعتنا هالكي أنا كفير إنه نوع أبال عليو أما نوم هالنقو واجبات كي أنو سيدا حلكسنمada u gudanay aanu ka soo deynay ayaa aadayn aan loo meeldeyn oo wadani wuxuu gala jeeday waxa kale isaga la weydiin doono ayay nagu miisaan marka ummadda reer Soomaaliya iyo cid kale waxaan u cadeynaynaa ishiigu ma ahayn shirqoolna ma ahayn arinta baasaboorka diblomaatiga lagu qabsaday waana nu cadeynay oo waxaan u sheegnay inuu baasaboorkaas jiro waana nu ka sii deynay intaasanu doonaynaa inaan u sheegno waxa kalena ummadda ku wargelinaynaa iyo dadka kale gacanta ku haya baasaboorka diblomaatiga ee shaqada ka tagay ama sida qaldan u qaatay inaanu kala shaqeyno immigration-ka sidii looga soo celin lahaa